wariyaha telefishinka Soomaali Channel uga soo warrama Dubai ayaa waxa booqasho uu ku tagay suuqa ganacsiga ee dadka Soomaaliyeed halkaasi ay ku leeyihiin iyadoo xilliga xagaagu uu yahay sida wariyahayagu soo sheegayo marka dhaqdhaqaaqa ganacsigu uu bilowdo hayno faafaahiyo Cabdulqaadir Axmed Sheekh oo suuqaasi booqashada ku tagay waxa xarunta ganacsiga Imaaraadka Carabta ee magaalada Dubai laga dareemayaa dhaqdhaqaaq xooggan oo ganacsiga ah ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Dubai ayaa intooda badan waxay ku tiirsan yihiin ganacsato wax u dhoofisa dalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah wadamada Yurub iyo Afrika iyo Ameerika haddaba ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Dubai mar aan ku booqanay xarumahooda ganacsi ayaa waxay faahfaahin inaga siiyeen isbeddelka suuqa maadaama la guda galay waqtigii samarka oo ah xilliga ganacsigooda oo kor u kaco hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa halkaan waa Jakaju Cargo waa cargo waxaanu fariin u direynaa macaamiisheena sharafta leh meel walba ay joogaan inaanu soo kordhinay khidmado saa'ida sidii waagii hore ku ogaayeen inaanu geyno door to door hadda waxaanu bilownay airport to airport ilaa CBMyo inaan qaadno iyo waxaanu kaloo suubinaa khidmad European kaliya ah oo aan ku jirin wadamada kale Scandinavian ilaa UK ah oo bilaa canshuur DDU door to door unpaid waa meenaheedu alaabtu lagu keenaya wax canshuur adigu ma bixinaysid inkastoo had saamarkii uu bilaabanayo saamarkii baa la galay soo khidmadaasna waan ku soo kordhinay meesha iyo qiimo jabis baan subinay dukaanka la dhahaa Caraf iyo Xuud u jeedaan wuxuu iibiyaa kareemayaal nafaqo ah wuxuu iibiyaa natural kareemo oo dadka wajiga ka dilmay waxay soo celinayay wuxuu iibiyaa alaabta productigaas cusub oo hadda aan dukaankan maahan cid kale iibin waxaan iibinaa Crenal skin la dhaho oo jirka lightingkii dabiiciga u soo celiya waxa kale oo aan aad ugu faraxsanaa inaan wadan muslim oo nabad deganahay ilaahay kaygana sidoo kale ha naga dhigo waxaan iibinaa karba mira la dhahaa waa hair treatment oo timaha nafaqo ay biyaha iyo waxaas dhibsada ka ilaaliya kareenkan sidoo kale dukaankan kaliya iibiya waa facial scrub whitening leh laakiin natural things haya waxyaalo badan baan iibinaa cabaayadahan iibinaa cambuurada oo dhowr dhisaynan iibinaa iyagoo gacmo dheera ah iyagoo batal falayda ama faraashad ama balambaalis qof kasta oo yaqaano ama baabiyo Djibouti bas loo isticmaalaa waxaan iibinaa isagoo la dhayaa ku ureeyay Soomaalidu taqaano sayr gacmo gaaba waxaan iibinaa goonooyinka waxaan iibinaa cabaayadaha oo kala duwan iyagoo qaaliya iyagoo jaban aduu qiimo fiican qofkii xataa ka qaadanaya wax badan waxaan u sameeynaa discount macaamiisheeda waxaan u dirayaa qiimo jaban alaab qurux badan wax wanaagsan waji furan meeshay u baahdaan haday u baahdaan dib aan diris haday doonaan dalab markay yimaadaan aduu qiimo soo dhaweynaya baan hayaa iyadoo la galay waqtiga samarka ee dadka badan soo dhoofayeen Yurub laga imanayay North America laga imanayay meel kasta laga imanayay aad baan soo dhaweynaynaa wallahi waxaan u dirin lahaa macaamiisha waa dukaankii Farxiye waa dahabliye ay taqaaneen waa hooyadii dahabka nisaamo badan oo cusub baan haynaa samarkii baan ugu soo socdo insha Allah waa diyaar garownay gabdhuhu waxay nooga barteen baan u haynaa mar walba loo kala bedelayo nooc walba leh dooqoodii caadiga oo dhismadoodu aad u kala duwan yihiin casriga cusub kulli hadda Soomaalidu waxay baratay qofkii xalakaatiga caaw wuxuu ku leeyahay maxaa cusub wax badan oo cusub baan haynaa wax badan oo cusubna waa soo socdaan soo diyaar garoobaan leenahay insha Allah haddana waa kana ku soo dhawaada dukaanka waaye dukaan cusub dukaan idin soo dhaweey doono qiimo fiican ugu imaa doontiino diseeno cusub iyo faashiyoono cusub iyo wax walba laga hirgali doono marka alaab badan baa haya waxa haya garbasaaradaniiti waxa haya heri hooska duruucda adi faashiyoono badan news badan adi wax badan baa insha Allah waxa haya isqurxinta waxa haya kareemooyinka silfarka waxa haya wax walba oo la isku hagaajiyo oo la isku qurxiyo dumarka ku soo dhawaada mar walba aad timaadina Dubai ayaa leeyahay walaalahay Soomaaliyeed meel walba iga fiirsanayaan magacayga waxa la yiraahdaa Sahra Yusuf Liibaan waxaanu leenahay waxaanu ku jirnaa hoolkan khaaska ah waxaanu iibinaa dharka dumarka sida duruucda garbasaaraha googaradaha iyo waxyaabo badan oo soo raaca insha Allah waxaanu ku xiranahay Mareykan Europa Ameerika kullu makaan Soomaaliya meel kasta tahay waanu ku xiranahay marka alxamdulillah kuleeyahay ku soo dhawaada duruucdaas quruxda badan garbasaaraha duruucda anwaac ashkaal ayaanu iibinaa dharka caruurta dharka dumarka googaradahaas oo kala nooca dharkaas baanu iibinaa marka waxaanu leenahay samarka insha Allah
nagu soo dhawaada shirkadda iyadu waa shirkad waqti dheer ku soo jirtay bulshada inay ku qanciso nidaamkan kaargooyada ee ah door to door service airport to airport service waxaan kaga faa'iideysanayaa inaan bulshadayda iyo macaamiisheeda qaaliga nagu ah meel walba ay daafaca caalamka ku joogaan inaan ku soo dhaweynayno gacmo furan oo aad iyo aad u qaali nagu ah bulshadayda kala joogta daafaca caalamka inayno aan u sameynayno nidaamyo cusub oo alaabtoodii uga fudud oo awal ka ahayd airport to airportkii oo airportka qofku tegayay oo ka soo qaadanayay inaan uga bedelno nidaamka isticmaalayno waa ugu bashaarinayna oo nidaamka systemka online-ka isku soo wada duub tan intii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa magaalada Dubai waxay halbowlo ganacsi u noqotay guud ahaan dalka Soomaaliya isla markaana waxa magaalada Dubai u soo talxiis taga Soomaali badan oo ku dhaqan wadamada Yurub iyo Ameerika Abduqaadir Axmed Sheekh Somali Channel Dubai